Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabteeda qaaliga ee ku xiran YouTube channelkayga ayaan dhalaan cooking waa idin salaamo kusoo dhawaada mar kale iyo jadwalkeena habeennimo. Waqti kastoo idiinta wanaagsan oo wacan ayaan idin leeyahay. Waxaa waaye gabaldhicii galabtii intaan salaada maqrib la gaarin waaye maasha Allah cirka caadi ma ahan jawiga aad u qurux badan aad u degan yahay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin alshukr lillaah. Codkaygana wuu gaaban yahay karaale ahaada waxaa waaye waqti dambe fiidiyowgaan cod saaraya oo la seexseexday. Marka asxaabteyda qaaliga waxaa waa hadda jikada soo galaya insha Allah inta salaada maqrib wax yar ka dhiman waxaan diyaarsanayaa wixii aan diyaari karo. Marka cabitaanka shiidaya waxaa ku daraya beetroot iyo qaro waaye waa shiida sokor yar ku daraa. Marka shiido waa miiraya fridge-ka ayaan gelinayaa insha Allah. Waa ka haduu noo shiidmo hadda waa miireynaa. Marka hadda fridge-ka gelinayaa insha Allah. Maxaa ku xigo oo qaban doonaa qudaarta soo baxsaday oo u baahanahay. Waxaa waa loo xabbiyaya xabad karoota basal iyo barbarooni waan dhaqaaya waan nadiifinaya yaanyada waa shiida karootada waa hoolaa basasha barbarooniga waan jarjarayaa. Waxaa waa meeshaan chicken igu jiro chicken-ku ii diyaarsanaa dabka u saarnaa wuu ii bislaaday. Hadda waxaa waa maraq digaaga ku darayaa haddaad reero maraq digaaga ahayn waxaa isticmaali kartaa cusbo. Labada xabbo tamaatada ahayd waa soo shiiday. Basashii barbarooniga iyo karootadii waa soo diyaarsaday. Marka caawa cashada waxaa waa ugali iyo suugadeed oo aad u macaan badan chicken. Waxaa waaye waxaa haysatid sameysaa la dhahaa insha Allah. Inta haysan Allah siiyo inta haysatan Allah u barakeeyo alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Hadda marka waxaa waaye spices-kii aan ku darayaa hadda waxaa ku daraa waa huruud. Sidoo kale waxaa ku daraa waa reyko oo powder ah. Marka haddaadan haysan waa ka maarmi kartaa haddaa haysatidna ku darso. Intaas isku habeynayna insha Allah. Sidoo kale xawaaji dhudhub waa ku darayaa oo shiidan. Waxaa kaloo ku darayaa garam masala. Waxaa ku darayaa shiishiid. Intaas isku darayna insha Allah. Biyihii aan ugalida ku karnaana dabka ii saaran yihiin. Marka salaada maqrib waa soo aaday maqribka tukanaya. Alxamdulillaah maqribka soo tukaday marka hadda ugalida boobsiina. Ugalida waxaa waa markii la waxaynayo waa shaqo badan tahay marka digsiga gacanta ku qabo. Waxaa waaye gacanta kalena waxaa waaye waxay waaye marka ma idin duubi karo waxaa aan sameynaya qaarkood. Markaasoo kale sababtoo ah baasha taleefanka lagu xiro kaamirada way iga jaban tahay marka taleefanka ku xiro taleefanka dhinac uu qalacsanaya marka sidaas daraadeed ma idin wada duubi kari. Marka hadda soorta ugalida ku soo shubto waxaa waaye kaamirada meel dhiganaya. Oo ujeedin wali waxaa waaye si fiican baasha markii oo la karinayo si fiican in la isku dhex geliyo waxaa la rabaa xoog loo adeegsado. Marka oo maanta dhanba mar dhinac loo gadi marba dhinac loo gadi inkastoo waqti badan aysan qaadanayn suugada waa ii diyaar waa ii bislaatay. Awalba chicken-ka way bislaaday yaanyada iyo xawaajiyaashan dhexda ka galaan dheeraway. Marka basasha iyo wixii ku soo darsaday waa dabka ka daminaaya. Ugalidina waa tanaa oo wali waxaa waaye dabka kama daminin hadda dabka soo damiyay marka waa ka sii danaysanaya insha Allah. Marka waa kaas asxaabteyda qaaliga. Marka basasha barbarooni ku daro digsigan dabka ka damiyay. Waxaa waaye suugada cambaar ha sii hurto. Hadda marka waxaa shaynaynaa saxanka soo saaranay ugalidii iyo suugadii farxalkii cabitaankeena waxaa waaye iyo israashadii fadhigaas ii geeya marka hadda waa soo cashaynaynaa insha Allah. Markaas ayaan isku soo noqon doonaa kadibna waxaa qaban rabaa marka cashayno. Markaas aan ku soo baxday alaabtan inaba caadi macaan badan tahay kabsarta iyo toonta oo ku dara kamaan halmaamin. Hadda waa la soo cashey waxna waa la soo jijibiyay waana kaas marka alxamdulillah. Weelasha iska biiraacinaya
galaasyadii jaban oo iska qashinka iskaga darayaa marka meesha ay ku jabeen oo soo tirtiro soo hagaajiyey si aynan dadku u mudin iyo ilmaha. Jikadina waa taas waa soo nadiifiyey nadiif waa gabi ahaanteedba. Marka hadda qaybta hoosaan tirtirayaa tirtirihii biyo waa kuwaas halkaas i yaalaan. Hadda markaan waa tirtiray waxaa waaye markii tirtira u dambeeyay aan marinayay. Marka maxaa sameyn rabaa cunuga casho yar siinayaa. Cashada aan siinaayana maxaa waaye waa ugaaladii ayaan caano qandac ah ugu darayaa. Marka waana shiidi kartaa qaadana waa ku burburin kartaa. Ana marka qaada ku burburinayaa insha Allah. Waa kaas weli kuus leedahay si fiican aan qaadada ugu burburinaya insha Allah. Marka waan u shiidi kartaa waana ka dayn kartaa. Hadda waxaa waaye meeshaan lagu qasbooyaa. Waxaa waaye bustayaasha dhammaaya dhaqay. Marka hadda waxaa sameynayaa sariirtiisa waxaa ugu gulayaa maro baati ugu gulayaa salaada cisho tukanayaa. Marka salaada cisho kadib tukado waxaa waaye quraankaaga iska akhriso. Hadda waxaa waaye baska ilmaha ka bedelayaa oo baamsa nadiifa ku seexinayaa. Marka waybiskii wixii soo diyaarsaday intaanan sariirta imaanin ka hor waaye. Hadda waxaa waaye sariirta imaada xariif meeshaan cambaar ciyaarsiinaa kadib waxaa waaye cashadiisii caanihiisa soo siiyey naaska lagu seexinayaa. Marka waa kaasaaye fadhigan waa kaasaa nadiif wuu noo kala aruursan hadda leerka ka diminaa waa iska seexanaynaa insha Allah. Inta aan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaa idinka codsanayaa subscribe-ka inuu sii socdo inaad like badan siisaan share badan siisaan commentiga. Inta aan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tagayaa asxaabteyda qaaliga sidaas nabadgelyo iyo nooli kulante. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.